السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قاليga soo dhawaada rag iyo dumar anoo kala qaadeenin waayo dad badan ayaa igu xiran ma sha Allah waxaan leeyahay waa mar kale iyo video cusub bilis hadii aad nagu cusub tahay marka hore subscribe saar channelka like badan noo saar siina share garay wixii fikrad aad qabtid oo su'aalo in lagaaga jawaabo ama hadii kaleeto cashirada qaabka aad u fahamto hoos nagu la wadaag insha Allah walaalaha su'aalaha isoo weydiiyay waxaan rabaa haduu rabbi idmo video inaan ka soo sameeyo anoo qof walba su'aalaheeda uga jawaabayo haduu rabbi ila garab galo insha Allah waxa meeshan uga mahad celinayaa horta dadka igu soo biiray walaalaha igu soo biiray oo qalbiga wanaagsan leh waxaan leeyahay soo dhawaada meeshan waxaad ka heli doontaan waxyaabo naftiina ay ku raaxeysan doonto iyo tan caruurtiina waayo guri walba caruur ayuu ku dhisan yahay oo ah guriga dhalaalkiisa ama hadii kaleeto mirihii guriga ma fahamteen marka waxaan leeyahay waxyaabo badan meeshan ka faa'iidi doontaan biidnillaahi kariim waxaan rajeynayaa wax badan inay ka faa'iideen dadka igu cusub oo noo imaan doonana ayagana waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiina mahad celintaas guud ahaan rag iyo dumar ayaan meeshan uga mahad celinayaa waa hooyooyin iyo aabooyin waayo gabdho iyo wiilal inta way igu xiran yihiin inta sadaan uga tilaabs marka hadaan inii mahad celin waxa waaye wax fiican ma ahan walaalaha markii ay wax wanaagsan ay sameeyaan waa inaa ku dhiirigelisid anigana waa inaa igu dhiirigelidiin waxyaabaha iyo juhdiga aan haayo waa inaa igu dhiirigelisiin aad dhigi kartiin wax fiican soo gudbisa ama waa ka faa'iidno sababtoo ah anigana qalbiga igu dagayo oo waxa is leeyahay dadkaaga shaqo wanaagsan ayaad u heesaa inta sadaan uga tilaabsado cashirkeena wuxuu quseeyaa caruurta yaryar oo ka bilowdo 6 bilood ilaa wixii ka koreeyo gaar ahaan 6 bilood ilaa sanad ma fahamteen cashirkan waxaan uga hadli doonaa bariiska biyihiisa ama caanihiisa caano sababta loo dhaho wax waaye waa shay cad sida caanihi camal ah bariiska biyihiisa ama caanihiisa qaabka doontid u qaado waxyaabaha jirka caruurta yaryar u taraayo ama hadii kaleeto ay ka heli karaan ayaan rabaa biidnillaahi kariim inaan ka hadlo bariiska horta saan ognahay waxyaabo badan oo waxa ku jiro jirka bini aadamka uu u baahan yahay qaasatan caruurta yaryar oo ku jiro waqtiga koriimada wuxuu u tarayaa waxyaabo aad u badan waxa ku jiro fitamiino badan waxa ku jiro waxtarka bariiska jirka caruurta uu leeyahay inta ma lagu soo koobi karo maadooyin aad u badan ayaa ku jiro oo ilmaha waxtar badan u leh saali ajligeeda cunuga markuu aad u yar yahay waxyaabo badan ayaa loogu isticmaalaa bariiska anaga diirada waxa noo saaran waxay tahay bariiska qaabka loo sameynayo iyo qaabka caruurta waxyaabaha looga daaweynayo waxaan rabaa ilmaha shubmayo ama shubanka badan sameynayo caloosha aad ay u qasan tahay in aan iga faa'iideeyo bariiska shuban joojiyo waaye gabdho iyo wiilal intaba waxyaabo badan oo waxa ku jiro cunuga calooshiisa isku dheelitirayo ka joojinayo shubanka neefshiidka cunugana u wanaagsan oo calooshiisa aad u weyn ugu wanaagsan bariiska marka hore waxaad sameynaysaa 2 qaado oo bariis ayaa soo qaade 2 qaado bariis markaad soo qaadid aad u nadiifinay biyo diiran ayaad ku dhaqaysaa biyo diiran markaad ku dhaqdid waxaad ku shubay digsi waxaad ku dareysaa 1 bakeeri oo biyo ah 4 qaado hadaa rabtid 2 bakeeri oo biyo ah ayaa ku karinay laakiin 2 qaado oo qaadada lagu cuno cuntada markeeda oo 2 mar ah waxa ku dareysaa 1 bakeeri oo biyo ah saali ajligeeda waa ku karkarinay markaa karkarisid biyaha ayaad ka miireysaa biyaas markaa ka miirtid waxaad sameynaysaa in aad cunugi markay qaboobaan aad ugu shubtid masaasad ama hadii kaleeto qaadada aad ku sii kartid masaasada duusa ku cabeenin mid waa meeshaas oo ilmaha aad u weyn ayuu calooshiisa ugu wanaagsan yahay shuban joojiye degdegana wuu yahay gabdhaha mar walba dhahaan caruurta naga shubma ama calool ma jiire naga qabaan
ilmaha 6 bilood jiro ha siiyaan. 6 bilood wax ka yar ma fiicno mana la sii karo waayo allergy badan ayaa laga yaabaa inuu ku kiciyo cunugii mana xamili karo. mid waa meeshaas. midda kale qaabka kaleeto oo loo kariyo waxa waaye waa in sida hadda camal intaad u isticmaashid misana meeshii awal biyaha ka miireysay aad sameysid biyaha iyo bariiska inaad isku shiidi kartid markaas ka bacdina cunugaaga aad sii kartid. bariiskan ilmo badan wuxuu ka caawi doonaa caloosha in ay baxdo ayuu ka caawi doonaa inuu joojiyo waayo waxa waa shuban joojiye fiican oo aad muhiim u ah caruurta shubmayana aada loogu qoraa waxtar badan ayuuna u leeyahay ilmaha xitaa haddaysan shubmeenin waxyaabo badan oo fitamiino ah ayaa ku jiro miisaanka ilmaha xitaa aada u kobciyaa oo cunuga wuxuu kaaga dhigayaa cunug koriimadiisa ay aada u socoto. bariiskan ka war doona inti taqaano ma sheegayi laakiin intaan aqoonin waxaan leeyahay bariiska biyihiisa ama asagoo isku jira kari ay sii cunugaaga si wax badan uu uga taro biidnillaahi alkariim. su-aashaas meeshaas ayay iigu dhamaatay. su-aalo kaleeto oo waxaa jiraan aan rabo in aan la wadaago dadka igu xiran oo ah ilmaha markay yaryar yihiin badanaa calool xanuunka ma ka dhamaadaan caloosha boroboleemo badan ayaa ku dhacayo waayo waa ilmo cusub adduunka imaaday caqabadihii hooyadii naaskeeda waxyaabihii uu kala kulmayay sida caanaha isbedel inay ku imaadaan ama caanaha formulada oo inta badan ilmaha ay ku xanuunsadaan la siinayo isbedel ku imaanayo ayaa laga yaabaa caloosha cunuga inay boroboleem u geysato. marka waxba ha walwalin waxaad sameedaa masaaj u sameeya ilmaha markay yaryar yihiin haddii masaajkaas wax uu nii tari waayo uu nii shaqey waayo waxaad la aadaan xarun caafimaad oo dhakhtar ku munaasab ah caruurta cuduradooda u geysi cunugaaga uu macnaha uu uga saacido xanuunkaas uu haayo. laakiin cunugii haddii guriga inta isaga heysatid daawooyin banaanka aad kasoo gadatid aad siidid waxa waaye waa dhibaato badan ayaa mar walbo ilmaha banaanka daawada laga soo gado aaday calooshooda u dhibtaa waayo maba xamili karaan. cunugaaga dhakhtar inay u sameeyid isku day xitaa dhaqaatiirta badan wax ku anfacaya ma ahan hal dhakhtar oo wanaagsan dooro dhakhtarkaas ku xir cunugaaga si mar walba xaaladiisa uu ula socdo feelka uu kuu geliyo in cunugaaga xaaladiisa uu la socdo laakiin marba isbitaal hadaad taaginta waa dhibaato cunugaagana weji cusub oo kasta wuu la kulmayaa. marka intaas talo ayay iga tahay talo walaaltinimo walaalaha quruxda badan fiidiyogeena insha Allah biidnillah halkaas ayuu noogu egyahay. walaal cusub oo nagu soo biira haddaad tahane waxaad noo saartaa subscribe like badanna hanaga halmaamin. soo dhawaada channelkan ku soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.